dembi baaruhu ma waayi karo dilaaga amaba dembiilaha uu raadinayo ilaa shay baa jira uu caddayn ahaan uga tegay dembiiluhu taasuu garan waayey dembi baaruhu amaba ka hoos baxsanayd. shakadeenna maanta waa kiis la xallin waayey kadibna la xaliyey loona xaliyey si fudud oo leeyahay markii hore maxaynu saa u arki weynay. assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhowaada. magacay waa managerka, halkanna waxaan kusoo gudbiyaa sheekooyin kala duwan, hadday noqoto dembi baaris, hadday noqoto sheeko aduu soo wada dhegeysaada iska ogaanayay. team managerka waa isxoreeyeen, hadda afarta ku baynu madax la sii geli rabnaa, inkastoo aan rabnay sanadka dhammaadkiisa in aynu koto kun galno. dhammaantiinna aad dhahdeen waa macquul, laakiin ficilkiina saan ka arko macquul maa, marka afartankaynu ka dhiganayna. yalla fadlan haddii aad weli muuqaalka like saar, haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto qoyskeena team managerka kusoo dhaweynaynaa, fadlan subscribe ta taabo. sidoo kale waa maalinkii tobnaad iyo muuqaalkii tobnaad oo xiriira, haddana aynu muuqaalkeenna maanta horey u galno. tuulo yar oo ka mid ah dalka Cumaan, taariikhdu markay ahayd 1997 waxaa ka dhacay wax ilaa maanta loogu tilmaamo waxyaabihii ugu qariibsanaa ee tuulada ka dhacay. wax ugub ah oo aan horey loo arki jirin, dadkuna ku cusbaa, aadna looga argagaxay. waxaa jirtay goob ganacsi oo ku taalay tuulada, ahna goobta keliya uguna caansan ee ay dadku isugu imaan jireen si ay wax isaga gadaan waxna u gataan. meeshu waa meel derbi leh, wareegsan, dhul baaxad weyn leh, dukaamo badan baa ku yaala, mid dahaba lagu gado, mid hilibka lagu gado, mid raashinka lagu gado, mid xoolaha lagu gado, mid cilaanka iyo waxyaabaha gabdhaha lagu gado, mid kuwa ragga lagu gado. nooc walba oo suuq laga rabay bartaasi yaaleen. meeshu waxay lahayd 2 albaab, waardiyaal baa habeenkii ilaalin jiray, maalinkiina waa lagu kala ganacsan jiray. sideeday ahayd tuulo yar oo layswada yaqaano, dadku iska kooban yihiin, meel ganacsiga ku fiican ah, taariikhdu ay tahay 9meeyadii. meel ka mid ay ahayd meelaha ugu wanaagsan, inkastaan ay caasimad ahayn, laakiin dee tuulooyinka ugu wanaagsan bay ka mid ahayd. suuqa kama aysan shaqayn jirin amaba kama aysan shaqaysan jirin dadka wadanka u dhashay ama tuulada u dhashay oo keliya. waxaa jiray dad ka yimaada wadamo kale sida Bakistan, Hindiya iyo dee Afrikadanba. meel la isku wada jiray ahayd, ma ahayn meel la leeyahay kooxda keliya u badan, haba u badnaadaan kuwa meesha deganay, laakiin dee kuwo kalena waa jireen eesa badnaan hadday rabaan. subaxyada ka mida dadku ma aanay maqlin aadaanka hore ee salaada subax, taasoo ka dhigtay inay la yaabaan yarkii maalin kastaba adimi jiray. kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad midna lama adimin, maadaama ay meeshu tuulahayd. waxaa jiray hal masjid oo weyn oo ay raggu isugu yimaadaan si ay isugu tujiyaan salaada subax ka hor intaanay aadin suuqa, laakiin subaxa lama adimin lamana aqimin, taasoo ka dhigtay dadkii inay guryahooda isaga tukadaan iyagoo yaaban. haddana isle waa dee iska insaano, hurda la tegi karta, si kale u xanuunsan karaa, go-aan buuba qaadan karaa, hadduu rabo diintu isaga bixi karaa, way iska normal lama ahan. salaadii subax kadib markuu cirku yaro casaaday ee qoraxdii soo dhadhawaatay, ummadii guryahooday ka soo baxeen say dee yaa fataax yaa rasaaq u dhahaanay u raadsadaan irsaaqadooda. waa soo baxeen, suuqii baa la yimi, waxaa la arkay albaabadii oo furan. kow baa layiri niyo waxay waardiyaashii waa soo baxay, waayo dadku iyagaa furi jiray meesha, amaba marka la furayay arki jireen albaabadii, laakiin ballaqan waa wax iska cusub. saasay tahayna